Okay, waxaad u baahan tahay inaad soo degsato PDF Reader. Habkan ay ku qoran tahay PDF Reader. Ugu horreyn Play Store ka gal, waxaadna ku qortaa PDF Reader. Waa kan PDF Reader-ka ku dhufo. Waa kan application-ka. Anad waa soo install gareystay. Markaad install soo dhahday kadib waxaad sameynaysaa buugaagta waxaad ka helaysaa ayagoo free ah. Chrome-ka aad gelaysaa, Google Chrome-ka soo fur. Waayahay Google Chrome-ka sidaan ayuu u furan yahay. Meeshaan ay search ku qoran tahay waxaan ku qoraa marka buugaagta aan u baahanahay. Okay, buugaagta aan u baahanahay halkaan ku qoraa waxaan ku qoraa marka hadda tusaale waxaan rabaa buugaagtan oo ku saabsan sheekooyinka. Waxaan qoraa buugga sheekooyinka. Waa kan buugga sheekooyinka. PDF aad raacsiinaysaa ama qoraalada hoos ku soo qoro sida hadan ani ugu qoro oo kale aad raacaysaa marka buugga sheekooyinka PDF aad ku dhufanaysaa. Waxaa soo baxay sheekooyinkii ugu wanaagsanaa oo ah 35 page. Aad u jeedaa pages waa 35 120 oo KB ah buugga. marka sheekooyinkii ugu wanaagsanaa waa ku dhufanaya marka ku dhufto waxa soo baxa fiiri. Waa kan waxa ay soo baxay calaamadda download. marka waxaan lahaa download u jeedaa oo ii soo degay si toos ah waxa ii geena marka PDF-kii download ay soo dhahay marka isla markii buu ku dhufanaa markii si aan u akhristo PDF Reader-ka. midka kale ee qoranta Drive PDF Viewer waa Google Drive-ka asigana sidoo kale waa loo akhrisan karaa hadaadan haysan PDF Reader-kan ama kuwa kaleeto oo loo akhristo. marka dib dambe idinkaga tusin doonaa balse hadda PDF-ka Reader ayaan galayaa. waa kan PDF Reader-ka waa 35 page. sida aan soo aragnay sheekooyinkii ugu wanaagsanaa ku qoran Ahsanul Qisasul Anbiyaa ayaa ku qoran. ujeedaan qoraaga micnaha Cabdirasaaq Maxamed Cilmi ina warfaa ayaa ku qoran. Cabdirasaaq Maxamed Cilmi asoo afcarawe ina warfaa. marka qoraad sidan oo jiidaysaa haddii aad rabto soo weynaysan kartaa far iyo suul inaad ku qabato waa taqaanaa si loo weyneeyo. waa kan waxaan ugu horeyntii u mahadnaqayaa Eebe oo igu galadaystay nimcooyin tiro badan oo aanan koobi karin. kadibna waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii igu caawiyay talo, fikrad iyo dhiirigelin. waxaan idin leeyahay Jazakallahu khayran. waa ujeedaan buuggan oo la soo diyaariyay hordhiciisana oo ku diyaarsan. marka buuggaad rabtid meelaad ku qoraysaa asigoo PDF ah. marka ku qortid buugta ku qaar oo free ah inta badan way yaalaan. buuggaad rabtid ciwaankiisa ama waxa la mid ah ay ku qoraysaa ayuu ku soo baxayo. marka markaan dib u laabto PDF Reader-ka aniga buugta waa kuwana waa buug aad u far badan. marka adigana sidoo kale waa sida sanduuq oo kale PDF-ka buug kasto aad akhrisato iyo ku cusub inta meesha ku soo dhigaya. haddii halka aad ka weysid meeshaan ay ku calaamadan ka muuqato show files kaas ku dhufanaysaa kadib waxaad tagaysaa download. markaad tagto buugta aad soo dejisay oo dhan meesha ku jiraan ka doontid ciwaanka ka dhufanaysaa. alahan waa buugta ducooyinka salaada oo kale. kan marka ku dhufto waa kan oo soo bax adkaar bacda salaah.
waa 17 page oo ka kooban yahay waa ducooyin iyo tasbiixyo oo ku qoran. waan soo degsay adigina waa soo degsan kartaa. marka Google Drive-ka aan idin tuso marka waa kan Google Drive-kan inta badan waa taqaaniin. marka PDF-kan hadaadan haysan Google Drive-ka aad haysatid micnaha buugadii aad soo degsatid caadi waad ku akhrisan kartaa. hadda waan idin tusinayaa sida loo akhristo, waa isku mid. buugagta halkan waad ka raadin kartaa. waxaan leeyahay documents. waxaa ku tijaabinaya asaaska suugaanta PDF drive PDF viewerkan 2 mar ku dhufo. keep this file. calaamadaas oo ku tilmaamo ku dhufanaya. marka kadib waxaan dhahaa save micnaha buugga waxaan ku save gareynaa. marka hadda buugga waxaan ka dhex raadinayaa. marka waxa ugu jira Google Drive-ka. waa taqaaniin Google Drive-kan waxyaala ayaa lagu shubtaa ama lagu qarsadaa sida sawirada, fiidiyoyaasha iyo buugaagta documentary. asigana video aad ka samayn doonaa sida loogu keydsado uusan kaalumeyn. waa kan hadda sidan ayaad u akhrisan kartaa asagana. waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen fiidiyowga. waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim.